kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel walba ad naga daawanaysaan iyo si walba ad noo maqlaysaan kusoo dhawaada xogihii ugu dambeeyey haddaba maxaa cusub khilaaf xoogan ayaa ka dhex qarxay xisbiga damo jadiid ee guddoomiyaha uu ka yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud laba garab ayayna u kala jabeen kadib fashilkii ku yimid shirkii golaha wadatashiga qaran shir qarsoodi ayay xalayta ku yeesheen degmo kamid a degmooyinka gobolka banaadir waxaana halkan idinku soo gudbin doonaa xubnaha ka qayb galay labada garab ee ay u kala jabeen waxa ay isku haystaan iyo sidoo kaleeto weliba qaar ka mid a mas-uuliyiinta dhinacyadaasi kala matalaysa magacyadooda ayaana qodobkeena koowaad idinku soo gudbin doonaa hadduu aan laydmo qodobkeena labaad tan iyo shirkii markii uu fashilmay waxaa magaalada muqdisho ka socdo kulamo dhinacyadu ay yeelanayaan sida xildhibaanada golaha shacabka xisbiga damo jadiid villa soomaaliya mas-uuliyiin badan oo hadda aan xilal haynin laakiin la aragtay xasan sheekh maxamuud waxaana dhammaantood intaasba ay ka arrinsanayaan sidii shirkaas dib loogu furi lahaa lix iyo labaatanka bishan hadda aan ku jirno oo villa soomaaliya ay shaacisay in shirkaasi dib la iskugu soo noqon doono haddaba shirkaasi maxaa laga filanayaa ma laga yaabaa in dib la iskugu soo laabto maxay tahay xogaa hordhice kasoo baxaya madaxda maamul goboleedyada iyadana qodobkeena labaad ayaan ku iftiimin doonaa qodobkeena saddexaad maxaa kasoo baxay wafdigii qaramada midoobay ee shalayta gaadhay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ee u imaaday in shirkaasi fashilmay ay dabagalaan isla markaana ay villa soomaaliya garab ka siiyaan sidii madaxda maamul goboleedyada la iskugu soo celin lahaa is-afgarad amama heshiisna looga wada gaadhi lahaa qodobada sida weyn la iskugu hayo ee burburka u horseeday shirkaasi ee dhowrka asbuucba ama labada asbuucba ka socday gudaha magaalada muqdisho iyagana wixii kasoo baxay kulamadii ay la qaateen villa soomaaliya wafdigii qaramada midoobay ayaan iyadana dul istaagi doonaa soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidii dhan oo walaaba qeybta commentiga aynu ku bilowne horta damo jadiid laba garab baa loo kala jabay khilaaf xoogan baa soo kala dhexgalay qaar waxay intay soo fadhiisteen ba waxaa layidhi war waan fashilanay baa layidhi sheekh xasanow waan fashilanay meeqa jeer ayaa shirkeennii waxa weye golihii wadatashiga qaran uu fashilmay meeqa jeer baa waxa weeye dib loo dhigay meeqa jeer baa la isku imaan waayey meeqa jeer baa intii la isku imaadayba waxaan shaacinaan weynay waan fashilanay baa layidhi rag baa waxay dhaheen fashilku ceeb maaha inaad fashilanto ceeb maaha laakiin inaad sheegan weydo inaad fashilantay aad afkaada ka sheegi weydo ood qiran weydo ayaa ceeb ah ninka ragga waa ninka kufa ee kaca micnaha waa ninka khasaara waa ninka guuldaraysta waa ninka guuldaraysto dhowr jeerba guuldaraysta dunidana waxay ku tilmaamaan dadka darsa arrimaha guuldarooyinka iyo guulaha dadka gaadhayba ee dabagala waxay ku tilmaamaan qofka guuldaraystaay tiro badan ayaa tiro badan guulaysta oo guul gaadha iyo horumar gaadha marka waxaa daran laakiin markaad fashilanto inaad fashiladaadii cashir aad ka qaadan weydo oo wax kaaga bixi waayaan waxay doontoba ma aha siyaasad keliya adigay daawanaya ganacsadaha hadaata waxa laga inu ganacsiga kaa burburay ha niyad jabin ku kale isku day ha nixin ha cabsanin horey u soco waxaa laga yaabaa inaad shaqooyin badan isku dayday ku fashilantay ayadii aad ku fashilantay haddanana dib ugu laabo ku noqo wad isku dayada badi ha dhowrin wixii adiga kaa fashilmay cashir laakiin ha kuu noqdaan xasan marka arrinta haysataa waxay tahay fashilada iyo ceebta ku dhacday ayuu doonayaa inuu maro saaro oo uu qariyo ma doonayo inuu wax ka barto cashir ka qaato uu yidhaahdo qodobadayna fashiliya waxay yihiin waa kan iyo kan iyo kan aynu kan iyo kan soo maaha sideen uga baxnaa xal aan ka gaadhno aan iskugu yeedhno aan isku keenno aan tanaasul aan samayno ninka geesiga loo yaqaanana hadduusan tanaasul samayno qofku hadduu doonayo inuu geesi noqdo waa inuu tanaasul badan yahay waa in wixii oo kugu khadhaadh aad ka tanaasuli karti oo ka tegi kartid waa in wixii oo kugu xun aad u samri kartid oo ka tegi kartid waa in wixii oo aad aragtid inay danahaada ku jirin aad tanaasuli karta wey oo qofkan kale dantiisa wuxuu ka dhaxarko aad ku raaci kartid waa geesi ninka laakiin haddaad meel ku dheganaato fulay baata marka dambena meesha iyadaabaa lagugu imaani kaf waa lagaa goyn xoog baa lagaaga jari qasab ayaa lagaaga goynaya xasan marka arrinta haysataa waxay tahay wuxuu ku dhegan yahay laba qodob oo maalintuu soo galay iyo maanta qorshayaashoodu unbase uu fuliyo waa doorasho qof iyo coda oo guddiga doorashada qabanaya isaguu soo magacaabayo
ودورشة صوص تسيدو كسو لابن لها كليا انت بس كشقينيا حتى أرميه دول لما سيدين الدل كانوا مانتا ان وحاوي وكجري ولا عدليي ولا بيلهي marka madaxweynuhu dastuurkii baa bedelay dastuur cusub oo samaystay dastuurkii cusbaayo uu samaystay dhaqan gelintiisii weeye waxa la isku haysta marka dhaqan gelintiisa waxa kamid ah in madaxda maamul goboleedyada muddo kororsi hal sano la siiyo kadibna waxa weeye guddi doorasho isagu soo magacaabo guddiga doorasho ay qabtaan doorashooyinka maamul goboleedyada iyo midda madaxweynahaba guddiga isaguna uu maamulo guddigaas oo isagu soo magacaawdo de waa sifadii uu ku soo laaban lahay isagu marka uma danaynayo shacabka maamul goboleedyada uma danaynayo madaxda maamul goboleedyadana uma danaynayo isaga danaysanayo waa sidii uu ku soo laaban lahaa sidoo ku soo laaban lahaa ayuu ka shaqeynaya oo kaliya wax kale kama shaqeynayo wax kale oo ka shaqeynaya malaha maanta marka waxay sabab u noqotay arintii noocaas ahayd ee tanaasul la'aanta ahayd ee fulaynimada ahayd waxa weeye dhinacna waxa weeye aan uu yiri kama nuuxsanayo uu waxay sabab u noqotay in xisbigii damu jadiid ay laba u kala jabaan rag isaga la socday labo in loo kala jabo ayay sababtay oo maxay u kala jabeen rag way soo istaageen waxa la yidhi niyo anagu waan fashilanay baa damu jadiid hadaan niyo waan fashilanay arintii isku haynta bulshada iyo siyaasadii arrimaha gudaha waan ku fashilanay maadaama marka aan fashilanay maxaan sameeynaa tanaasul aan sameeynaa leeyahay aan nabadayn samayno dalkii waa afruhu ka baxay cadawna waa kana waa soo qulqulaya sidana wadanka kuma hogaamin karno waan ceebownay naqajar mushirku inaga fashilmay tanaasul aan samayna leeyahay aan asxaabta mucaaradka u yeedno gogol weyn aan dhigno madaxda maamul goboleedyada ka soo qayb galino cid walba oo wax tabanaysa aan la hadal la leeyahay sheekh shariif aan u yeedno cabdiraxmaan shakur aan u yeedno farmaajo aan u yeedno faadi yaasiin aan u yeedno ninka la yiraahdo cali khayri aan u yeedno dhamaan raggaan u yeedna leeyahay maxay nooga maqan yihiin waa rag Soomaaliyeed oo siyaasiyiinoo wax kugu haysteen aan u yeedno waxa inaga aynu haysto aan ka doodno oo haddii aan ka gar helana de gartaa qaataan inaga hadday inaga gar helana aan garteena qaadano si dalkaan u badbaadino siyaasadiisii hor socodkiisa u badbaadino shirka marka xasan sheekh maxamuud dhinaciisa waxa uga qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi degmada Cabdicasiis ayuuna ka dhacay shirka xalayto shireel baabada u xidhan yihiin buu ahaa laakiin de Soomaalidu wax ma qariso ninka Soomaaliga wax ma qariyo inagu wax qariska aad baan ugu xunahay wadamada kale waxa laga yaabaa shir ay galeen laba dawladood ama laba nin ama laba mas'uulay wada galeen inaan la aragba wixii ay ku heshiiyeen 500 sano kadib laga yaabaa inuu soo baxo ama uusan soo bixinba laakiin Soomaalidu madaxweynaha ninku maanta intuu wax u jabiyo dhiil weyn u jabiyo u yiraahdo hore u socod dadkan hay sheegin isla markaa uu soo qaato madaxweynaha baysi warka waa baxaya waa baahayaada marka dad inagu wax qariyo sir iyo wax qarqariya ma nihin baashu waa soo booday marka shirkii xalayto ka dhacay degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir way soo booday waana la isku afgaran waayay waa lagu kala kacay shirka waxaana la filayaa in kulamadu ay sii socon doonaan xubnahan sida weyn uga soo horjeeda xasan sheekh maxamuud hanaankan uu watay dalka kala qaybiyay waxay iskugu jiraan xildhibaano iyo sanad bay iskugu jiraan laakiin xisbiga damu jadiid ayay ka tirsan yihiin waxa iyagu ay soo dhaweynayaan in mucaaradka loo yeero gogol la dhigo si waxa weeye fashiladan isdaba jooga looga baxo oo siyaasaddan arrimaha gudaha qalloocsan ee dalkeenu maanta waxa weeye ku kala qaybsan yahay in la mideeyo maadaama Ethiopia ciidamo badan ay dalka soo gelisay bisha December ciidamadu ha bixin la leeyahay Ethiopia ma baxayna ay taagan tahay dagaal ay sabab u noqon karto dalka hala badbaadiyo iyagu taagan yihiin waana aqli saliim arnaantii oo arinta ay soo jeediyeen waa muwaadiniin Soomaaliyeed oo aqli saliim ay soo jeediyeen mas'uuliyiintaasi haddaan taa la samaynin oo mucaaradka loo yeedhin oo ragga maqan loo yeedhin oo tabashooyinka la xallinin oo madaxda maamul goboleedyada ee maqanaan loo yeedhina dalkan midnimadiisana lagama shaqayn karo cadowna iskama dhicin karno waxaana ma qaban karno waa laga sii darayaa qabiil baa loo kala waxayna Ethiopia dee qabiil walbay hub siinaysaa bas de waxa weeye qoys baa la isku jeesan marka dambe 91 waxaan dhaabin baa loo laabanaya marka ilaahay horta naga badbaadiyo ma doonayno inaan dib u laabane ilaahay madaxda qaranka xasan sheekh maxamuud oo ugu horeeyo ilaahay qalbigooda ha soo jeediyo oo xaqa iyo wadada saxan ilaahay ha dareensiiyo wax bay ku dhagan yihiin aan naf lahayn inay gaarayaan xataa war loo haynin bay iskaga dhagan yihiin oo wali ay waxa weeye ay dalkii ku sii kala qaybinayaan
dhinaca kaleeto wafdi qaramada midoobay ka socday ayaa shalayto magaalada muqdisho soo gaaray kulamo ay la qaateen madaxda dowladda filla soomaaliya ay kulamo la qaateen waxaana laga arrinsaday sidii loo xallin lahaa ama xal loogu heli lahaa khilaafkan maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda ka dhexeeya ee sii xoogeysanaya marba marka ka dambeeya kasii daraya ee fashilada waaweyn u keenay horay u socodkii qorshayaashii ayba filla soomaaliyaba dooneysayba marka kulama la qaatay qaramada midoobay way ka dhageysteen filla soomaaliya tabashooyinkeeda iyo rabitaankeeda iyo waxa ay dooneyso waxa ayna sheegeen inay kulamo la qaadan doonaan madaxda maamul goboleedyada oo mid mid ay ugu tegi doonaan kadibna wixii kasoo baxo ay filla soomaaliya dib ugula soo laaban doonaan arrimaha hordhici kasoo baxaya waxay tahay inay doonayaan shir ay khasab kaga dhigayaan madaxda maamul goboleedyada iyaguna ay korjoogto ka qayb ay ka noqonayaan inay u qabtaan filla soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada walow filla soomaaliya ay tiri 26 bishan baa shirkan dib la iskugu soo noqonaya waxyaabaha laga filan karana aad iyo aad ay u yartahay in dib la iskugu soo laabto madaxda maamul goboleedyadu waliba siiba axmed madoobe iyo lafta gareen inay iyagu ay kusoo laaban doonin ay loo badinayo filashada laga filanaya in la isku soo laabtana aad ay u yartahay waxay doonayaan iyagu inay 26ka bishan ee filla soomaaliya ay qabsato hadda muddo asbuucba hadda ay ka dhiman tahay in dib la iskugu soo celiyo qaybna ay ka noqdaan madaxda maamul goboleedyadana ay ku qanciyaan inay iyagu goobjoog ay ka noqon doonaan isdiidooyinka siyaasadeed ee kala dhexeeya madaxda filla soomaaliya waynu eegi doonaa wixii kasoo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa weli cakirnaan siyaasadeed ayaa jirta dalkeenana marxalad aad u adag buu maraya wixii kasoo kordhana muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa anigoo santaaga ayaana mar waliba inala socodsiin doona halkaad naga daawanaysaana waa Warsan Media.